بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عيد مبارك dhammaan ehelkeena Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan idinka iyo caruurtiina iyo qoysaskiinaba maadaama maanta soonkii dhammaaday waxaan jeclahay in xaqiiqada dhabta ah ee hortaalla aan ka hadlo waan ka warqabaa in soonkan ramadaankan uu ahaa mid aan sahlanayn waan ka warqabaa in ascaarta raashinka daruuriga ah ay aad u sarreysay waan ka warqabaa in akhbaarta aan ka maqlayno magaalo madaxda Soomaaliyeed ay ahayd jahwareer siyaasadeed iyo isqabqabsi waana ka warqabaa in badan oo idinkeena ka mid ah aad ka daasheen fashilkan soo noqnoqonaya iyo isqabqabsigan jahwareerka wata hooyooyinkan oo eed in iska taxalluujiyaw inni caa'iladood iska hayaan iyo dhalinyaradeen oo geekab isweydiiyaw inni wal mustaqbal ee badalka kaleeyin iyoona dareenjo sifayle on ku warqabo si hatalka jara si jara kara ma ah in dalka goboladii khayraadka badan yaaleen xoolo iyo beeraba la cuna qabatay in amniga dalka ajnabi leh ka tiirsanaada saas dawlad malka dhiso karo dawladtaas ku fayla yaa dadka Soomaaliyeed istaahilkooda ah dawlad oo cunu qabateen suubyaan laakiin dhisaas buundooyin dadka iyo dalka iska hiraw laakiin maanta waxaan jeclahay inaan dhaho haquusanina laa taqnatu min raxmatillah dariiq ka wanaagsan oo saddexaad ayaa jira ka wanaagsan kana duwan midka fashilka soo noqnoqonaya iyo midka jahwareerka labadaba dariiq ixtiraamaya gobolada Soomaaliyeed khayraadka dalkana ku tiirsanaanaya inuu dalku ku dhiso dariiq kalsoonidiisa ay gaarsiisan tahay in ay xuduudahooda ilaashadaan dariiqaas iyo dawladdaas dhisideedina waa ay dhowdahay haddii Ilaahay yiraahdo balse maanta akhbaarta oo dhan iska xira internetka oo dhan iska damiya la dabaaldega caruurtiina iyo qoysaskiina Ilaahay intuu wax siiyeyna dariskooda ha la wadaageen hana ku raaxaysteen nabadgelyada iyo farxadda iyo reynreynta maalinta ciidda ciid mubaarak Allah barakeeyo dhammaantiin iyo dalka Soomaaliyeed